شيخ ayaa waxa uu dhacaysaa sidatan sheekh waxaan ahay gabar xijaaban oo xaas ah muxuu sharciga u ogol yahay si aan u qurxiyo timahayga sida madow iyo casaan ama jilcin iyo wixii lamid ah alxamdulillah timaha gabadhu waxaa mamnuuca inta ay su'aashiga weydiisay madoobaysada ka mamnuuca calaa khilaafin iyadoo lafteedu khilaaf ka jiro waxyaabaha kale midabada kala maadaama xinihii loo ogolaaday dadkii midabada kalena way marin karaan timaha haddii aan waxaan maadada la marinayay dhib ka badan isaga ayna qofka u soo jiidaynin hadday soo jiidayso wax dhib ka badan lama ogola daawooyinkan timaha jilcinaya ama mawaadan kiimikada ee lagu jilcinaya timahana asal ahaan way bannaan tahay oo dhibaato ma laha waxaa laga yaabaa halkaa mas'alada dadku timaha jilcintooda inay yidhaahdaan soo ma aha takhyiiru khalqillaahi khalqi ilaahi la bedelaya soo ma aha sharcigu soo ma diidin ilkaha in la qorqoro si loo qurxiyo sharcigu soo ma diidin in waxyaabaha jirka lagu taltalaala iyo ciridka iyo in la mariyo tani maxay kaga duwantahay waxaan leenahay marka mas'aladu tani la mid ma aha waxa lagu qurxiyo oo xubintii muuqaalka wax ka bedelayay waa laba nooc wax waqti go'an joogo baabaa iyo wax waqti dheer joogo daa'ima kan sida ilkaha iyo jirka waxa la geliyay iyo ama wajigoo la bedelo la qurxiyo operation iyo amaliyad lagu sameeyay dhagaha iyo ama dumarka oo naasihii operation intay ku sameeyaan ama yareeya ama weyneeyay iyo waa operation iyo amaliyad qofkii laga shaqeynayo wixiina uu joogto noqonayo taas lama ogolo takhyiirul khalqi taaway laakiin waxa waqti go'an muuqaalka qurxinaya sida cilaanka indhakuulka tan oo kale jilcisada dhibaato ma laha masaa'ilkaas qaacidadaas fiima yakunu baaqiyan waxa jiri doona baa takhyiir khalqillaahi dadka sheegay amadii hore waxa kamid ahaa alqaadi ciyaad rahimahullahu ta'ala fi sharh muslim markuu masaladan ka hadlayay waxaan filayaa waxa isagaan magacaabin laakiin ka soo guuriyay ama ka faa'iideystay al-imam al-qurtubi fi tafsirihi aayaadkan takhyiirul khalqi suuratu an-nisaa markuu ka hadlayo saasayna fataawada majaalista cilmiga iyo majaalista culimadu ku soo saareen iyo lijaanta cilmiga zamankan markay maadadan timaha jilcisa ka hadlayeen gaar ahaan fataawada Sheekh Ibn Baaz waa kamid majmuuciisa fataawa lajna daa'imana waad ka helaysaa meelo badanna way ku qoran tahay haddaba jilcinta timuhu markii kuwan la jilciyo dee kuwii kala soo baxaya sidii kuwii cirrada ahaa ee intii la cilaamay hoosta ka soo cadaanaya oo kaleeto waxba badan kama duwana takhyiirka iyo bedelitaanka aan daa'imka joogtada noqonaynin ma aha ka sharcigu xaraantinimeeyay jilcinta iyo kalarayntuna kaasay kamid yihiin ama midabka la marinayo madowga adilla gaar oo ku soo aroortay darteed inaan madow la ogolayn darteed baan isaga uga reebnay billahi tawfiiq